السلام عليكم maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan social media waliba social media dhamaantii kama wada hadlayno waxaan ka hadli doonaa aaladda TikTok runtii waxaan ognahay TikTok in sanadadii ugu dambeeyay dhowrkii sano ugu dambeeyay in aad publishka u isticmaalaya aad u sii kordhayaan runtii TikTok-aasi waxa uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay khasaarana uu leeyahay runtii oo maanta faa'iidadiisa iyo khasaarihiisaba way isbarbar socdaan oo qofkii maanta si fiican u adeegsada wax fiican soo gudbiyana natiijo fiican buu ka helaa qof waxaan soo gudbiyaan sumcadiisa sharaftiisa ayuu ku waaya haddaba platformkan TikTok waxa uu siiyay dad uu siiyay nolol aan hore u haysan hadduu TikTok xataa jiri lahayn sida uu heli lahaayeenba ay dee nooc kale ahaan lahayd haddaba aaladda TikTok maanta waxaan iga soo gudbinayaa 4 wiil oo runtii ka faa'iideystay oo dhanka positive ko isticmaalay hibooyinkoodina ku soo bandhigay adduunkiina viral ka noqday noloshoodina isbedel fiican kaga sameeyay dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba haddaba wiilkan aan iigu horeysiinayo waxaa lagu magacaabaa magaciisa lama hubo oo dalka Mareykanka u dhashay familigiisa information lagama hayo walaalana uu la dhashay familigiisuna Mareykan bay wada degan yihiin haddaba wuxuu ku soo galaa UDGAN TV buu ku soo galaa haddaba wiilkani 2021 buu bilaabay aaladda isticmaalka TikTok inuu halka fiidiyooyo yar uu soo galgaliyo isagoo cunto cunaya oo si faniya markaa u cunaya inuu soo galiyo ayuu halka ka bilaabay runtii cuntooyinka uu soo gelinaya faniga aad ayay ugu qarxeen viral buu noqday runtii maanta noloshiisa waxay ku tiirsan tahay cuntada yar sida faniga uu cunayo oo qosolka miidhana marka daawanaysid ba aad qoslaysid noloshiisa maanta way isbedeshay dhalada ugu waaweyn Mareykanka gobolka uu ka joogo iyo maqaaxiyaha ugu VIP-san ayuu waxa uu sameeyay xaysiisada lacag buu ku helaa isagina cunto ka helaa caana uu ka sii noqday publish badan oo ku sii kasbaday imika ku dhawaad 6 milyan oo qof baana ku xiran TikTok-giisa bariisa TikTok-ga marka nolol ayuu TikTok siiyay wiilkaas oo talentkiisa faniga abo ayuuna ku soo bandhigay haddana haddaynu ku socon drinky drinks and the gelato to make it hit the bottom. Let's go. wiilkeena labaad wiilkan oo isna lagu magacaabo Yaasiin oo u dhashay dalka Turkiga runtii isagu wuxuu deganaa magaalo kamid ah amba mii kamid ah magaalada dhanka Turkiga wiilkani haddaba wuxuu soo galin jiray fiidiyooyo dhansiya oo micnaha calooshiisa la ciyaaraya ayuu soo galin jiray baraha TikTok runtii halka markuu soo gali jiray ninkii wuxuu noqday isna viral oo runtii fiidiyooyadiisii hit bay noqdeen uu caan buu ku noqday dhansiga yar uu sameeyo oo calooshiisa la ciyaarayo rikeed bogoti calooshi la ciyaar baa ugu darbay hayd maamaadeenina marka ninkan calooshiisa la ciyaaraya wuxuu noqday runtii aad ayuu qarxay bari bulshada TikTok-na fiidiyooyadiisa 2 milyan 9 milyan 10 milyan qaar 70 milyan daawanaya kaliya waxa uu sameeyaa calooshaas uu maanta caan ku noqday marka waxa la oran ninka calooshiisaba wax u tartay ayaa la oran karaa haddaba wiilkanna waxa uu maanta u shiid audio amba uu sameeyaa xaysiisyo hudheelada waaweyn sidoo kale jaamacadaha sidoo kale goobaha kale biibka ah ayuu waxa uu sameeyaa xaysiisyo goobaha fadhiyada soo saaro kale gooraha jabiska waxyaabahaas oo dhan ayuu sameeyay maanta xaysiis oo dhaqaale fiican halka uu ka sameeyay magacna uu helay oo Turkiga maanta nin laga wada garanayay weeyaan fiidiyooyadiisa wada 100 milyan baa daawada isla aaladda TikTok ayaan oran kareena waxay u sameysay fursad nololeed oo noloshiisa ku hormariyo ikasoo ugu talagelin haddana maanta alxamdulillah ku taagay in TikTok soo baxdo aad buu ugu mahadinayaa Oi, pai! magacaabo lova lagu magacaabo ku soo gala aaladda TikTok isla wiilka yari wuxuu u dhashay dalka Brazil familigiisa iyo wixii soo dhanna wax information badan laga ma hayo laakiin waa gobolka Brazil kamid ah ayuu ku dhashay haddaba wiilkan wuxuu aaladda TikTok la soo galay hiba inuu kubad ku soo bandhigo isagoo waliba kubadda qaybta frigiga
laagayo oo meel fog ka tooganaya runtii oo waliba hibadiisa halka ku soo bandhigo hadaba wiilkana adduunka dhan wuxuu ka noqday caan fiidiyoodiisa wax daawanaya dhammaantood wada 100 milyan ba daawanaya runtii isna aaladiisa TikTok waxa ku xiran 22 milyan above 5 ka ku xiran wiilkana wuxuu aad uga noqday caan oo aalada TikTok waxa siisay fursad nololeed wuxuu la kulmay ciyaartooy waaweyn oo dalkiisa u ciyaara soo kale ciyaartooy waaweyn wuxuu la kulmay Yurub ka ciyaara oo yimid oo Juventus iyo Di Maria iyo dad badan ay ka mid yihiin dad xayisiisada sidoo kale shirkadda Pepsi waa uu sameeyay oo runtii noloshiisa isna waa bedeshay aalada TikTok way bedeshay oo dhinac fiican ay noloshiisa ka soo saartay hadii hibadiisa ku soo bandhigay noqon lahayd haduu caanimo ka lahayd haduu sidoo kale dhaqaale ka la xayisiisada uu sameeyo runtii wuxuu oran karayaa aalada TikTok inay soo baxdaa nolosheeda aad bay ugu muhiimsanayd ayuu oran karayaa wiilkana waxay siisay TikTok oo aalad runtiisna wuxuu oranayaa aaladan TikTok waxa ay bedeshay nolosheeda waxa ayna siisay fursad una ka filanay hadii TikTok jir lahaydna uu laga yaabay inuu meel kale ku soo bandhigeen oo sidaan u fudud inuu ku caan noqdo The king of the TikTok ninka ugu followers ka badan ee haysa in ka badan 154 milyan oo followers oo daafaha dunida oo dhan ah wiilkan noloshiisa way la soconaa in badan way ka dharagsanay inuu Talyaani uu shaqadiisa ku waayay aalada TikTok uu hibadiisa ku soo bandhigay ee silent-kayd aamusnaanta khaabi hadaba waxa uu ka mid yahay dadka ugu lacagaha ugu fiican ka sameeya aalada TikTok xayisiisada waa dheeraad iska daa shirkadaha ku xayisiinayo Binance ku xayisiinayo sawiraanta ciyaartooyda la soo galay waxa soo dhawaa extra runtii aalada TikTok lacagtu ka sameeya ayaaba isaga yareyn balaftiisa isaguna waa dadka ku mahdinaya in aalada TikTok soo baxdo why because noloshiisa bedeshay isagoo zero hay ka dhigtay noloshiisa caanimo ka helay wonderful baan oran karayna adoo sidii ugu ahayd ka faa'iideystay fiidiyoodiisana cid ka sheekan karaysa ma jirto barnaamijkeena inahaas ayaan doonayay inaan ku soo gabagabeeyo afarta qof ee ka faa'iideystay sida quruxda badan leh noloshooda ugu bedeshay dhanka Soomaalidana insha Allah waa ka soo hadli doonaa dad runtii noloshooda bedelay waa jira dad noloshooda gubina waa jira marka insha Allah iyagana waa ka soo hadli doonaa inaas inka ka sii baxayna wa billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh